gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa faafayay ujeedada wafdi ka socda midowga Yurub oo xafiiskiisa kula kulmay. wafdiga waxa loo soo diray qiimeyn inay qiimeeyaan doorashada halkaynu ka taaganahay iyo diyaar garowgeeda, inay qiimeeyaan diiwaangelinta u socoto, inay qiimeeyaan wixii mashaakil ay arkeen awsta kale soo hortaagan doorashada ama diiwaangelinta si hordhaca waxay soo bandhigi doonaan 29 bisha. Cabdiraxmaan oo aan weydiinay waxyaabaha uu ku soo arkay deegaamada gobolka Awdal oo isaga iyo wafdi ay hogaaminayaan ay dhawaan soo mareen ayaa waxa uu kaga jawaabay. shacbiga waxaan ku soo aragnay guud ahaan shacbi waajibkiisana gudanaya, abaari haysay, waqti adag ku jiray, haddana intaasoo iyadoo jirta haddana diyaar u ahaa inay diiwaangelinta sii wadaan oo si dhammaystiraan. shacbigaasi waxay ku hadaaqayeen guud ahaan inay diyaar u yihiin isbedel ka dhaco wadanka. telefishinka caalamiga ah Cable TV ayaa weydiiyay gudoomiyaha Ciro su'aal dulucdeed wahayda waxa ka jira dhaqaalaha ku baxay mucaawanada uu xisbigiisu gaarsiiyay dadka ay abaaru hayaan laga saaray miisaaniyadda golaha wakiilada waxaana uu ku jawaabay. waxay miisaaniyaddu xukuumaddu dee transparent bay hayso, saxaafaduna way joogtay, nuqulna waa heli kartaan miisaaniyadda qaranka ta golaha wakiilada meel kaga jirto raashin loo qaybiyo dadka iyo biyo la siiyaa midna ma jiro. taageerayaasha xisbigu baa siiyay oo hawsha bixiyay kaalmooyinba kuma jiraan miisaaniyadda golaha wakiilada. wasaaradda maaliyadda soo weydiiyay hadda miisaan. sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro oo ka jawaabay in wacyigelinta diiwaangelinta ay uga faa'iideysteen qaab u dhigan olole waxa uu yiri waxay la tahay dacwad weydiisu iyadoo aan tagin Awdalba waan weydiisanaa oo shirarku iyo taageeradu iyo xafladu waxay ka dhacaan Hargeysa. waxaan la tahay xilka xisbiyada oo cid ka mid yahay inay dadka weydiistaan cod, inay taageero weydiistaan, kuma xidhna inay u safraan Burco ama Awdal. gabagabadiina gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland oo aan weydiinay bal saameynta uu shirka wadanka Soomaaliya lagu qabanayo cariga Turkiga uu ku yeelan karo Somaliland ayaa waxa uu ku jawaabay. waa shir lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashada ka dhici doonta 2016. aniga aragtidayda waxay la tahay wax badan kaga duwanaa shirarkii hore Soomaaliya loogu arriminayay ama ka dhacay Djibouti ama Nairobi ka dhacay ama meel kale ka dhacay. marka inta fahamsan ku kooban yahay sidii loo maamulka Soomaaliya isbedel ugu iman lahaa. Najaadan Cunaaye, Cable TV, Hargeysa.